السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دواده برنامج كاره oon caawa martii noogu yahay waa fanaanka qaaliga ee weyn fanaan Ilka Casaqays Ilka Case kusoo dhawaan kule walaal SRTV iyo barnaamijka aad baan ku salaamayaa gaar ahaan adiga Asiyo iyo agaasimaha TV-ga iyo dhammaan taageeraha shanta Soomaali meel walba ay joogaan aad iyo aad baan u salaamayaa Ilka Case waxaan ku weydiin lahaa su'aal heesahaagu inta badan hanjabaad iyo raab bay u badan yihiin maxay tahay sababtu markaa علشان هيسها رابكه heesa raabad qaada hees kale ma qaadid marka heesahaaga raabka waxa ku jirta hanjabaada ku jira aadiya marka sababtu maxay tahay wel heesaha raabka gaar ahaan luqadaha ajnabiga waxa ugu horeeyo bilaabay Mareykanka Soomaa heesaha Mareykanka dad dhigaysta 80% waa hanjabaad iyo dagaal raabka wax yar baa jaceelka wax yar baana wadaniga marka raab gaar ahaan heesaha raabka una fiirso heesaha jaceelka raabka aan qaadno dadku waxay ka daawasho badan yihiin heesaha holofolofka la iska dhigay marka heesaha raabka waxay ku soo baxayaan hanjabaad dagaalka in la iswaabiyo ayay badanaa ku soo baxaan waxaa jirta hees kale oo iyaduna caana nuug la dhaho oo iyaduna karbaash ah heestaas caana nuug maxay tahay علشان maxay ku timid heesta caana nuug waxaa qoray abwaan Xasan Kaafi by the way horta abwaan Xasan Kaafi aad iyo aad baan u salaamayaa halkan baan ka salaamayaa Xasan Kaafi legendary heesayga ugu badan raabka asaga qoray heesa badan oo qoraa jiro sida heesta Skipo heesa badan boqor sida Nuurani marka aad iyo aad baan u salaamayaa heesta caana nuug abwaan Xasan Kaafi ayaa qoray ayadoo la xameysano ayuu ii dhiibay kulli waxaan u maleynaa maalmaha ka mid baan soo qabanaynaa weydiinaynaa Xasan Kaafi oo heesta caana nuug iyo ku socotay adeer rabta inay igu socoto laga yaabo sax marka waan wareysanaynaa Ilka Case jigjiga timiday waa markii kuugu horeysay jigjiga timid marka bal waxyaalaha kula yaabka badan waxyaalaha kala kulantay maadaama markii kuugu horeysay dawlad deegaanka aad timid oo yahay maxaa jigjiga Soomaa okay horta aniga waa markii ugu horeysay imaado waa saxsantay Asiyeena adeer markaan qurbaha markaan joogay baraha bulshada waxyaalihii la soo dhigi jiray propaganda ahaa in aysan dadku waxay lahaayeen saana jirto waxaan jirin ba meesha ay dadku baraha bulshada dhigi jireen laakiin marka aan imaaday oo aan dalka imaaday gaar ahaan magaalada madaxda jigjiga ayaa waxa dhacay horta aad iyo aad baan u yaabay shacab isjecel walaalo qabiil aan ka hadlaynin qof qabiilku weydiinaya ma laha nabadda taalo 8 saax habeenimo kaliya iska lugeeya waardiye ma wato wax ilaalin la ma wato baari gaar ma wato ani iyo walaalkay iga weyn iyo xikimna nalama joogo horta walaalkay iga weyn xikim nalama joogo oo waliba managerkayga waana walaalkay iga weyn xikim aad baan u salaamayaa ogaaska insha Allah bismillaah kariim marbaan asagana keenayna marbaan soo afduubeena marka nabadda dalka taalo iyo shacabka isjecel madaxda iyo maartay sida ay shacabkooda uga warhayaan waxay calashan nabadda iyo horumarka madaxweynaha shanta Soomaaliya oo aqaan aniga Mustafa Maxamed Umar uu nagaarsiiyay aad iyo wixii propagandihii Facebook lagu hayay aad iyo aad baan aniga horta oo la yaabay calashan waxa dadka qaar ku kalifay marka arintaas ay ugu yaabadnaa calashan sida dadka dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada dawladoodu jecel yihiin iyo madaxdooda waa tahay Ilka Case badanaa daawadayaashaadu iyo dadka ku yaqaana waxay ku yaqaanaan Ilka Casaqays marka magacaan magaca ahayn muu jiraa dadku waxay u yaqaanaan Ilka Casaqays laakiin aniga magacaygu waa Maxamed Qays Abdulqaadir Duwowire waxaana ka soo jeedaa family reehire la yiraahdo marka oo aad iyo aad loo yaqaano marka magaca Ilka Case waa naanees
waana dhanka aabbo duqaabaha abwaan buu ahaa ilaaha ii daayey marka magaca ilka cas halkaasuu iga soo raacay banaanaysiisa laakiin ani magacayga waa maxamed qays cabdiqaadir صح labada magac maxamed ilka casabaa tiri marka sidee lagugu kala bixiyey labada magac marka qayska iyo maxamedka maxamed duqaaba ay bixiyey صح qaysna hooya ay bixisay okay marka labada magac saasay ku yimaadeen marka labada magac saasay ku yimaadeen waa tahay hadda waxaynu soo gaarnay qaybihii dhexe barnaamijka hees waxaa jirta dhaanta ah oo hadda cusub bal heestaasaan ku dhihi lahaa bal dhaantada aan midowno bal yaa sameeyey dhaantada aan midowno waxaa suubiyey abwaanka shanta soomaali abwaan maxamed hargeele oo walaalka ah oo weliba mar walba aniga garab taagan waana ninkii maalinka imaaday ilaa haddii garab taagan walaalkay ah waana abwaan kulligiin aad taqaanaan weliba waxaan jeclaan lahaa abwaan maxamed hargeele inaan u waco oo asaga uu noo sharaxo haddii ilaahay ka raan noqdo dhaantadaas maadaama uu asaga qoray oo marna waa fanaan marna waa abwaan marka maxamed hargeele waxaan leenahay ku soo dhawow allah ya cisak soo dhawow meena abwaan hargeele siduu walaalkay boqorka shanta Soomaaliyeed ee ilka casaqays uu maaragtay igu soo dhaweeyay inaan dhaantadaas aan midowna aan runtii aan ka sheekeeyo runtii dhaantada qaabka ay u dhacaysa marka dadku ay dhageystaan jacayl ay u muuqataa balse qofka runtii suugaan yaqaanka markuu sii dhuuxo aan midowno macnaheedu waxay ka dhigan tahay war aan madaan nahay Soomaalida deegaanka Soomaalida ama haddaanu nahay macnaha dadka shanta Soomaaliyeed aan midowno on gacmaha isqabsano on macnaha isku tanaasul on maxay ahayd aanan waxyaabaha xurgufti iyo barnaamijka iyo waxyaabaha ku dhex jiro intaan iska saaro aanu dad walaalo aan noqon on gacmaha isqabsano muhiimadeedu aan midowno weeyo jacaylkana dee runtii waa lagu dhax hubiyay aan midowno weeyo cashan muhiimadeedu aad iyo aad ka hadlaysa ilka casoob bal taariikhdaada oo kooban taariikh nololeedkaaga halkaad wax ku soo baratay halkaad ku soo barbaartay bal wax nooga yar sheeg horta aniga waxaan ku dhashay magaalada Dobley ee gobolka Jubbaland laakiin fanka waxaan mar walba fanka waan iska jeclaa laakiin waxaan aad u jeclaa raabka marka adiga Nairobi baan u soo guurnay Nairobi markaan anagoo joognaa ayaa waxaan soo binnay group baan soo binnay anagoo badan aan magacyadooda hadda inta ka sheegaynin oo maartay oo raabare ah iyo heese groupka markaan soo binnayba groupkii baan ku jiray laakiin dee iska dhalinyaro oo waxaan ahayn is aruursatay maartay meelaha oo maartay Shaleema Iyaan iyo Togdheer iyo maartay Shaleema Togdheer iyo markii maartay aan tagno maartay inta isku imaana banaanka ayaan iska camiran jirnay weliba gaar ahaan waxaan soo bin jirnay freestyle wax la yiraahdo marka funky markii si adib funky waagi baan soo galay laakiin oo si aan maartay oo aan niyadeeda soo gashay in aan group intaan suubin aan soo baxno laakiin ilaahay amarkii annagii oo qaban qaabadii groupka wadno ayaan aniga waxa Mareykanka xagaad ku soo barbaarteed ku soo baratay waxbarashadaadii hore waxbarashada well Dobleyna waan ku soo bartay Nairobi ugu dambeyntii Mareykanka gaar ahaan gobolka la yiraahdo waxaan ku soo bartay gobolka la yiraahdo Connecticut oo New York u dhow iskuulka labaad ugu waxa waa second oldest school Mareykanka waxa la yiraahdaa Hartford Public High School iskuulkaas aniga high schoolkaas ka qalin jibiyay markaan qalin jibiyay waxaan aaday 2 sano community college waxa la yiraahdo 2 sano waan dhameystay community college-ka waxaanan bartay engineer computer laakiin ilaahay amarkii dee shaqadii anigi iyo wixii maartay meeshii la rabay inaan hor u sii socdo dee funky waa xoogaa waqti yar galiyay iskuulka 2 sano soo dhigtay 2 sano baa ay hadhaatay waxaan ku weydiin lahaa ilka casoo waxaad joogtaa magaaladii Jigjiga ee dawladda deegaanka Soomaalida
ma laga yaabaa jigjiga inaad aroos ku dhigato aroos labaad ama aad ku guursato oo degtaba inaan ma aqaan inaan horeyna kuu sheego horta inta jigjiga waan usoo guuray maadaama aan aad iyo aad oga helay nabadda dalka horumarka dhalinyarada isjecel wax walba markaan aad iyo aad aan oga helay waxaan go-aan ku gaara horta inaan intuu soo guuro waan ogahay ninka ragga ilaahay baa u baneeyey 4 laakiin aniga hadda inaan noolaadaan rabaa ifaan markaan rabo inaan dhinto ayaan mid labaad raadinayaa waa tahay ifaan kuma qorshaysna markaa inaad imika guursato maya Naciima Diamond iga badan waa tahay aad iyo aad baan u salaamayaa Naciima Diamond aad baan u salaaminaa dumaashadii halkaas Naciima Joker aan ka salaaminaa dhammaantiin kaaso waxaan ku leenahay we love you waxaa jirta tiimkaas oo hal hays baad u leedahay tiimkaas oo muxuu yahay markaa tiimkaasow magacaas waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo isku tagtay oo qabiil walba ku jiro marka horena la dhihi jiray 11 brothers marka dambena tiimkaasow loo bixiyey magaalada madaxda ay tiimkaasow ka dhisan yihiin waxa weeye Nairobi inkastoo adduunka 43 ay joogaan gudoomiyaha aad iyo aad baan u salaamayaa Sharaf Cabdi ee tiimkaasow madaxweynaha tiimkaasow Maxamed Cabdullaahi Yurub qooya aad iyo aad baan u salaamayaa ugaaska tiimkaasow aad iyo aad baan u salaamayaa Cabdi Manaan waxaan kaloo halkan ka salaamayaa ina dalmar baan salaamayaa Mustafa Dalmar ayaan la dhagacade tiimkaasow waa badayn aad iyo aad farxaan aad baan u salaamayaa فرحان عبد العار أدي أد بانو سلام تيم كاسوي بدين لكن لما سو كوبي كرو صح حسن كافي حتى كميت بويا أدي أد بانو سلام يا حسن كافي بو بعيان كمان بو في عيان مان وتيم كاسوي صح باشو عن سلام يا تيم كاسوي بدين أو سيد كلمة سلام يجللي مدام أنا تو أنت سبب لي سلام هو إنه ضمبينيان هستين وقدام بيسا وحويان نوراني نوراني بانا هاي ليل كيبان دورا bal heestaasi eriyadeedii iyo laxankeeda codkan yara doonayay bal intaynan heesta u gudagelin heesta iyada waxa iska lahaa waxa qoray abwaan Xasan Kaafi hadawna waan ku sheegan oo malay heesayga badana waxa qoray Xasan Kaafi abwaan Xasan Kaafi wuxuu joogaa Nairobi mar labaad ma salaamayna dhamaan anagoo idil intii jooga gaar ahaan tiimkaasow wallahi heesta iyada waa qiso dheer haddii aan bilawnana ma dhamaanayso laakiin waxaan iska jeclaan lahaa inaan arrintaa la gelin because heesta iyada Xasan Kaafi qisadu ku qoraan ogahay adoo ka faa'iideysanaya ilka casoo bal halkan yaad salaan uga jeedin lahayd waxaan halkan ka salaamayaa number 1 hooyada macaan oo ku sugan hadda dalka Mareykanka waxaan leeyahay hooyo macaan I love you so much heestii hooyadeena insha Allah mar dhawaan soo daanaynaa I love you so much hooyo number 1 hooyaan salaamay number 2 waxaan salaamayaa aabbahay macaan aabba Cabdiqaadir Dhuuhire I love you aabba waxaan halkan ka salaamayaa tiimkaasow dhammaan meel walbay joogaan adduunka 43 hebel iyo hebel ma soo koobi karo dhammaantood waan salaamayaa dhammaan tiimkaasow waxaan halkan ka salaamay kala madaxweynaha shanta Soomaali baan leeyahay madaxweynaha shanta Soomaali baan u aqaanaa madaxweyne Mustafa Maxamed Umar waxaan leeyahay aad iyo aad baan ku salaamay madaxweyne horumarkan meesha hadda aan fadhiyo lagu wareysay wad u jeedaan aniga markii ugu horeysan soo galay waxaan u maleynaa MTV iyo BET iyo maartay NBC iyo meelahaas maartay oo Mareykanka iyo adduunweynaha iyo BBC da maxaa yeelay waa markii ugu horeysay meelo badan baa tahay adduunka fariisada Allah waa markii ugu horeysay aan arkay Africa meel sidan caalamiga madaxweynaha waxaa leeyahay marka aad iyo aad baad u mahadsan tahay iyo dhammaan asxaabta TV-ga oo ugu horeeyo agaasimaha TV-ga aad iyo aad baan u salaamayaa agaasimaha thank you aan leeyahay waxaan si gooni ah u salaamayaa Guuled Casoowe my big brother Guuled Casoowe walaashay Aasiya ayadana waxaan leeyahay
kulley deegaanka number 1 baa ka tahay weliba markii aan hadda Mareykanka joogo aad baan ku taageeri jiray markaa soo gashay Aasiya noolaato aan dhihi jiray marka aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan halkan ka salaamayaa xaaskayga laftigeela Naciima Diamond iyo waxaan kaloo halkan ka salaamayaa caruurtayda iyo hooyadood Naciima Cabdi Gurey ayadana ilaahay markii waa isku magac respect sadana magac caruurtayda I love you all saajid ugu horeeyay saahim ku xigo saari ma weeyar yahay iyo Naciima Cabdi Gurey oo ma xaaskayga hore marna walaashay oo marna my best friend I love you all inshallah bismillah kareem hadii aan nabadnahay inshallah by the way caruurta jigjigan ayagana soo dejinaya wana ka wada hadalnay gurigoodina waa diyaar inshallah aad iyo aad baa idin salaamay dhamaan waxa abwaanka thank you aan leeyahay abwaan Hargeele walaalkay abwaan Hargeele laftigeela badho walaal jiraataan ku leeyahay maalinkii ilaa iyo hadda waad garab taagan tahay isa badan oo ii qortayna qaar way soo baxeen oo kale shacabku arkeen thank you aan ku leeyahay walaalkay iga yar asagana habeenii maalin asna ila taagnaa aad iyo aad baan u salaamayaa legend baan u aqaanaa Saadam waana ogaaska reerka dhamaan siidka waan salaamayaa shucayb teamkaas oo dhamaantood waan salaamayaa waxaan kaloo halkan ka salaamayaa oo si special ah waliba u salaamayaa walaalkay iga yar boqorka codka legendary Xariir Ahmed ilaahay ka sukow hadii uu san joogi lahayn halkan waxaan u maleynaa ma wajaclaadeen baa u maleeyaa wadanka maxaa yeelay walaalkay Xariir laftigeela badho waa gob waa amin nolosheeda ma arkin qof walaalkay oo maanta Xariir aan la sima ma jiro marka Xariir iyo xaaskiisa waxaan leenahay xayaat we love you thank you so much by the way guud ahaanba daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaa waxa inooga dal barnaamijkeena gaarka ahaa oo martii noogu ahaa fanaanka weyn ee la holin waayay fanaan Ilka Casaqays annaga iyo bahda SRTV oo isku duuban waxaanu idinkaga tageynaa sidaas iyo amaana Allah lama hadabiga joorka baqiya dabaylaha nuli markay dhaqaaqa layda la deeri gadigolade uga dhaharsani hurdala ama joog aanu lixda lixad ee bauurisi kuwa naceebka la haraaqaya